السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan idinla wadaagayaa qiso 2 isbuuc ka horna dhex martay aniga iyo gabar Soomaali ah. Haddaba muddo laga joogo 2 isbuuc xilli saqdhaha ah oo ah 2 habeenimo meelahaas ama deesaas sida dadka qaar u yaqaanaan ayaan qof xanuunsan isbitaal u qaaday. Sheekada markii aan soo gaabiyo markii aan isbitaalka tagay fayl dheer ayaan la kulmay. haddaba faylkii qaybta hore gabar Soomaali ayaa uga jirtay. gabadhii aan soo istaagaba way i wacday. aniga oo dhinaca fiirina adiga miya ku hadlay isdhahaya ayaa yar kale meesha soo maray asna oo Soomaali ah way u wacday. kolay yarkaas iyo ayada wixii dhex maray mowduucan uma quseeyo laakiin muddo kadib faylkii hore markii aan ka soo baxnay fayl kale ayaa isugu nimid oo lagu sugayay dhakhtarka. markii aan meesha soo fariistay ayay gabadhii wacday. waxay igu tiri walaalo kaale waa u imid. waxay igu tiri naagtaani ag fadhisa canugeeda bakteeriya aad u badan ayuu firdhinayaa wuu qufacayaa ma u sheegi kartaa inay meel gooni ah iga fadhiisato. waxaan ku yidhi maad adigu u sheegtid. waxay igu tiri luqadda ma aqaano. waxaan ku yidhi qof canug ka xanuunsan yahay ma aqaano qaab aan u yidhaahdo meesha ka kac bakteeriya firdhinaysaaye ama canuga qufacaya aamusii qaab lagu yidhaahdo ma jirtee adigu maa ka cadid oo meel kale raadsad. way iga yeeshay markay istaagaysay ayaa fura ka dhacay in ayadu tuurtay iyo inuu ka dhacay ma aqaana kolay fura ayaa dhacay. waxay ugu tiri fura ii soo qabo. haddaba hadda markaan dib u fakero waxaa isleeyahay qaladka ugu weyn meeshaas ayuu ka dhacay. furahaas in aan soo qabtay ayuu qaladka ugu weyn ka dhacay. furihii ayaan soo qabtay meel ayay raadsatay kale way fariisatay hoo furahaada ayaan ku yidhi. waxay ugu tiri ii hay. waxaa intaas sii raacisay waxay ugu tiri niyow luuqadda iskuma fiicnin ee markii dhakhtarka i waco ii turjumaanayo ii fasir hayaan ku yidhi. aniga qofkii aan waday oo xanuunsanay asagana meesha ayuu fadhiyaa. labadeena qof la hor wici doono lama oga laakiin waxay u badan tahay ayada in la hor waco maadaama ay ayadu iga soo horreysay. ayaan ku yidhi sidii la filaya ayaa dhacday waa loo yeeray ayada waxay tiri nakeen dhakhtarkii aan sula tagnay. gabadhu marka waxa ay wadataa canug yar oo adiga jira dhowr bilood 2 bilood 3 bilood. dhakhtarkii waan u turjumaanay sida ay wax u jiraan. waan u sheegay canugu inuu shumayo oo shuban dartiis loo keenay meesha. dhakhtarkii waxa uu yidhi xafaayadda fura aan eega bal saxaridu sida ay tahay. dhakhtarkii wuu eegay waxa uu nagu yidhi anaga waxaan shuban uma naqaano waxaan dhahnaa saxaro jilicsan waana wax iska caadi ah. canugana waa eegay wax fuuqbaxa kama muuqdaan indhihiisa jirkiisa si kasta markaan u eegay ee canugan qaad naaska ugu dadaal si fiican caano u sii naaska u daay. inta ayaan u sheegay gabadhii kolley afka ayay furatay waxyaabo badan ayay ii sheegtay. kolley ninku hindi ayuu ahaa dhakhtarku inkasta uusan luuqadeena fahmayn haddee waxbuu qiyaasay. kolley gabadhu waxay ii sheegtay inay qalad samaysay inay meeshaan timaado dhakhaatiirtaana inaysanba waxba aqoon ay ogeed isbitaal kale oo ka fiican ayaa jira ayay ugu tiri inaan aado ayay ahayd. marka waxaan ku yidhi saacadda kolley waa saq dhexe ma aqaan inaad isbitaal kale aadi karto bal dhakhtarkaan la hadlo. dhakhtarkii aan la hadlo waxaan ku yidhi wanigow gabadhan waa hooyo way welwelsan tahay canugeeda ayay ka welwelsan tahay waxay rabtaa canuga in daawo loo siiyo. dhakhtarkii asagana afku furta. kolley sheekada meesha ka dhacday waxunbuu ka qiyaasta waxbuu isku dardarsaday. dhakhtarkii faylkaaga nagu soo tuuray wuxuu nagu yidhi dhakhtar kale raadsada niyow wanigow sooriniyow gabadhan way welwelsan tahay waa hooyo inta fayl on soo galna ilaah baa ogaay saacadda kadib dar kale ma raadi karno niyow nacaawi. dhakhtarka waxa uu taagan yahay gabadhan inay welwelsan tahay waa dareemi karaa oo hooyataana waa dareemi karaa laakiinna waxay shaki gelisay dhakhtarnimadeeda iyo aqoonteeda. marka sabab aan ku daaweeyey ma jirto aniga qof aniga aan i aaminsanayn cilmigayga iyo dhakhtarnimadeeda. waxaan isleeyahay hadalkaas waxa uu ka qiyaastay kolley isbitaallada ee magac qaaday ayuu maqlay sidaas leeyahay. meesha waxay noqotay gabadhii oo qayliyeysa dhakhtarkii oo qayliyaya kalkaaliyooyin nagu soo baxay meeshii buuqay noqotay horta. qajajac kadib xaal mastuur waxaan ku dhamaynay dhakhtarkii waxaa lagu qanciyey inuu wax un daawaa siiyo. dhakhtarkii wuxuu go'aan ku gaaray inuu siiyo asagoon ayada u sheegin paracetamol yar oo qanajabin ah oo ilmaha yaryarka loogu talagalay ee uu yidhaa maalinta hal mar sii. aniga haddii aan u sheego yidhaa wax lagu siiyey waa paracetamol waxaan ka baqay inay xaaladdu erka isku sii shareerto. marka waxaa isku yidhi kolley paracetamol maalinta hal mar la siinayo waxba kama dhibaye bal intaas ku ekaato arrintu. aniga intaas waxaa ka welwelsanahay qofka aan keenay isbitaalka oo xanuunsanaay in la waco asagana oo aniga gudiyaan ku jira asagana bannaankii jira waan welwelsana. gabadhi markii ay dhakhtarka ka soo dhammaatay ayay waxay igu tiri niyow gaari ma wato qof ayaa meesha igu soo dejiyey qofkii ii wac taleefonkayga boorsada ku jira soo bax. anigu waa labalabeeyey mar waa shakiyey mar waxaa israa waa qof hooyaa maskiina caawi mar waxaa israa qoftaan waa xadkii waa dhaaftay. kolley taleefonkii soo baxsho taleefonkii waa dansanya. waxay igu tiri taleefonka waa dansanya waa dabla'aan ee waxay igu tiri boorsadeeda haddana baar oo warqadaha ku jira ka fiiri nambaraa ku qoran oo nambar hebel u dambeeyo bal raadi. intaasoo warqad oo boorsada ku jirtaan soo baxsho buugaag ayaan soo baxsho rasiidyo intaasoo shay ayaan soo baxsho taleefonka ka raati waa ka waay. waxaan walaalay taleefon meesha kuba qoree annagaa wax yar kadib baxayna anagaa gaari wadanna waa ku qaadaynaa. waxaan u malaynaa 2 qof ama 1 qof inuu naga horreeya haddana la wicin. mayay tiri adinka waa daahaysiin haddee see rabtaa xal ii sameey. gabadhii indhaha ii shidad adiga waa ugu qaylisaan dhihi karaa. waxay igu tiri adaa xal lagaa rabaa igu tiri
waxa igu tiri adiga xal laga rabaa sidii waxa u moodaaba in anigu meesha keenay ama aan wada soconay ama aan isqow jirnay okay waxa iri makan waxa raadinaynaa jaajar la raad kuwa wardiya oo meesha jooga ayaan iroonay adiga meesha deganay jaajar loo raad nimanka waxa dhahnay anaga jaajar kuma sii karno laakiin uber ayaan wici karnaa gabadhi haddana nimankii ay la dagaashay waxay ku tiri nimanyo waa cunsuriyeenaysiin sidee jaajarku way kartiin adiga meeshan degan anima shakada sii sheegaysiin waxa iri dhimal hadii uber loo waxa xataa waa wici karaaye waxa iri walaalay uber ku waca ka soo tag nimankan arintu waa isku dhamaataba uberkaada iska raac waxay igu tiri hayay igu tiri way soo raacday uberkii meel dabaqa ayaan saaraynay qadka horta uu noo shaqeey way ku dhibtoonay kadib markii uu noo shaqeeyay haddana ciwaanka ay siisay sax uu noqon waay aniga qofkii aan meesha keenay in la wacay ayaan ka baqayaa waxa dhacday markaa alaaqir kulli uberkiina sheekada uberkana way shaqeey weys gabadhi waxaan ku yiri walaalay qof meel iga taagan in la wacay uma leeyna aan ku soo laabtay ma soo laabanay sidii tiri xalliniyo ari meeshaas markay maray xoogaa yara arid way kululays waxa iri walaalay oo ku soo laabana halkan igu sugnayo aniga qof meel iga dayacan ku qasbana inaan baxo joog halkan oo ku soo laabana waxa igu tiri uber barnaamijka ka qabsanaa lacag si aniga markaas lacag kaash ma wadin mid account ku jirto ma ogi markaas waxa ku yiri hadee meeshan qadkana wuxuu yahay ogtahay waxa ku yiri walaalay lacag kaash hadda ma wado gabadhi waa xanaaqday indhaha ii gaduudisay sadana waxay ugu tiri niyow bini aadam ah adaan bini aadam ahayn war maxay ugu haysataa aniga inaan ku caawiyo waa isku dayay maxay ugu haysataa waa ogahay inaad lacag hayso meeshan lacag la'aan ma aday imaas habeenkaas qada dhaxa qasab way lacag waa haysaa laakiin ay siisaa rabi horta waxa yiri dhima leh lacag dhima la account kala bixi karnaa meelahan ayaan ATM iyo mashiino wax kala raadinaa oo lacag kala baxno isug wax yar qofkii xanuunsanay ayaan soo fiirinayaa kadibna waa ku soo laabanaa erayga xun ayuu igu tiri kulay qoftii oo xanaaq ku jiro markaan ka soo tagay waan soo baxay waxa uu yimid qofkii already la xareeyay dhakhtarkii iyo asaga ay wax kala bar u marayaan ayaa u tagay arinta aan la yaabay ayaa waxa ay noqotay gudaha markii aan galay adiga dhakhtarkii waa ka tagnay meel kale ayaa nala gudbiyay wax kale ayaa nala gudbiyay yar ayaan isku aragnay oo Soomaali asagana yarkii waxa uu ii sheegay in arin la mid ah ay ku sameysay gabadhi waa sheeko dheer laakiin waxa ninkii markii uu ii sheekeeyay gabadhi waxa ay ii sheegtay iyo waxa ay asaga u sheegtay iskhilaaf weyn ayaa ka soo baxay waxa uu ii sheegay inay ayagana meel xun ka gaartay waxaan ku yiri kulay niyow maama Soomaaliya oo canuga intaas laag wadata oo saacadan saqda dhex socota kulay inay been sheega oo badnaa bal waa soo fiirina nimanka wardiye irida u tagay waxa ay raaw gabadhi meesha uga tagay waxa ay gabadhi waa lugeys halkaas ka baxday irida ka bax yaa u yimid qaaday ma naqaan kulay inay lugeynayso irida ka baxday ayaana ugu wardabeys arintaas marka waxyaabo badan ayaa iga soo baxaaniga dhan markii aan ka fikir waxa ii soo baxaysa bini aadamka iyo noocyada uu u sameeyay yahay iyo dadka say kala yihiin iyo noocyada uu isugu jiro bini aadamku iyo bini aadamka aqliyadiisa iyo waxyaabo la mid ah ayaan ka fikiraya dhan kale markaan ka fiiriyay waxa ka fikirayaa gabadha geesinimadeeda qof ay soo aqoon sidaas wax uga dhamaysan karta qof ay soo aqoon inta uu wacdo iska wadato ku soo shaqaysato waxay rabto ku qabsato haddana ka sugaysa waliba inuu gaari sii saaro lacag sii siiyo geesinimada intaas la egna waa la yaab ayadana marka kulay dhageystow adigana maxay kula tahay sheekadaas maxaa kaaga soo baxay